قاسم دعالة عبدي حسن جولة شاكر waxaa laga oofinayaa xad qasaas ah oo lagu xukumay in January 10keeda ay ku kala dileen Xamarweyne iyo Balcad marxuumiinta kala ah Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani Abirimo iyo Cali Taliya Cariif. Abirimo ayaa xoogsato nolosha ka maareyn jira alaabta yaryar ee aaga xaafadaha qadiimiga ee Xamarweyne looga yaqaan Jukaatarada. waxa uu Qaasim u dilay marxuum Abuukar wax ka yar 25 senti oo dollarka Mareykanka ah. Cali Taliya Cariif oo ahaa bajaajla Balcad iyo Muqdisho isaga xoogsada ayaa isna u geeriyooday xabadaan ujeeda ka dambeyn oo uu iska tuuray Xasan Juula Shaakir. Habraacadoodii maxkamadeed oo si degdeg ah uga jawaabay garsoorka ciidamada qalabka sida si loo ilaaliyo muwaadiniinta ku nool harka dawladnimada ayaa lagu kala xukumay dil toogasho 15 iyo 16 isla January sanadan 2023. maanta ayaa lagu oofiyay xadkii qasaasta ah Qaasim Ducaale Cabdi iyo Xasan Juula Shaakir sida uu ku dhawaaqay toogashada kadib gaashaala Muumin Xuseen Cabdullaahi ku xigeenka xeerlaaliyaha ciidamada qalabka sida dawladda dawladda hoose Qaasim Ducaale Cabdi waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani Abirimo taariikhdu markay ahayd 15 bishii koobaad 2023. sidoo kale dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysane Xasan Juula Shaakir waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaastii marxuum Cali Taliya Cariif. maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 2023 waxaa lagu wada fuliyay xukunkii qisaasta ahaa 1 dawladda hoose Xasan Juula Shaakir 2 dawladda hoose Qaasim Ducaale Cabdi wabillahi tawfiiq. waxaa toogashada u joogay ehelka marxuum Abirimo adeerka iyo walaalka marxuumka ayaa toogashada kadib ka cabiraya dareenkooda warbaahinta qaranka. maanta maxkamadda aad aynu qanacsan ninkii oo walaalkayga dilay Abuukar Maxamed Sheekh Nuuraani aragtidiisa ninka dilay aragtideeda shantii saartay alxamdulillah waan arkay balkii waan fuliyay guul ilaahay ka dhigo ما شاء الله وحب ما الله دولة حقيدي نكي عدالة إني لو قد العدالة وحي دولة أنك بركي ويلك للدلي أنا أنا وحنا ربنا عدالة دي حسن شيخ محمود ونو معي راهين كان نو أيدي ما أنت وأركني وحكمت ما شرفت الله قول madaxda garsoorka ciidamada xeer ilaalinta ciidamada ayaa halkan goobjoog ka ah waxaana hawshan fulinteeda iska lahaa ciidamada gaarka ah ee Haram Cad iyo koofiya casta militariga. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka tiirka iskool Buluusiya.